بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد قلبت وحن شركة جرايد أقبلني إن وربحين كديبنو حالة أبارها سيدو كلا وحدين عيقة تاجن ويقوه اللي شركة جرايد مانتا جديجا برمت كأبارها لوح الساري إنه كشقيان برمشة أبارها أو ككوبن علومه xubno ka socda bulshada rayidka dad ka socda ganacsatada oo inay u gurmadaan dadkooda loogu talagalay. waxaan marka hore u mahadcelinayaa dadka Soomaaliyeed ee gurmadkaas nagala qayb qaatay, gaar ahaan bahda saxaafadda oo meel kasta oo tagno iyo howlaha gurmadka tabinteeda ka qayb qaadanaysay ayaan u mahadcelinaynaa. sidaa la socotaan dadka ay abaaraha saameeyeen, abaaruhu waxay ka imaadeen 4 xilli roobaad oo baaqday iyo midka soo socda oo deyrta ah oo rajo badan oo runtii saadaasha xaggeeda hawada markii la yiraahdo cimilada aysan ka jirin, waxay keentay in 7 milyan iyo 100 kun oo qofood oo Soomaali ah ay abaartu ay saameyso, oo 5 milyan oo ka mid ah dadkaas xaalad degdeg ah ay ku jiraan, 300 kun oo ka mid ah xaalad macluul ah hadda ay la tacaalayaan. waa abaar aad u daran, waxaa la yiraahdaa waa 40 sano abaar aan dhicin dalka oo kale waaye. marka annaga dadaalka aan wadnay iyo guddiga gurmadka abaaraha waxay ahayd inaan dadka Soomaaliyeed u weydiino inay dadkooda gargaaraan. howlo badan ayaa runtii aan dhaqaajinay oo ay ka mid tahay inaan tagnay meelihii dhibaatada ka jirtay, indhaheenna ku soo aragnay, adduunkii aan Soomaalidii deeq u weydiinay oo hadda ay soo bilaabatay inay dowlado badan deeqaha ay soo bilaabaan, qaarna ay deeqihii hore u bixi jireen ay kordhiyaan, oo qaarna ay haddeertaan soo diraan wufuud oo ay maalmaha ama usbuucyada soo socdo ay dalka ku imaan doonaan si ay xaaladda ugu kurgalaan. taas waxay ahayd inaan indhaha ku soo jeedino beesha caalamka iyo dadka samafalayaasha ah inay gargaar u fidiyaan dadka Soomaaliyeed oo abaartu ay saameysay, ay dhibaatada u geysay. sidoo kale waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed naftooda inaan ku soo jeedino indhaha dadkooda tabaalaysan, annagoo ka faa'iidaysanayna munaasabadda toddobaadka xorriyadda sidoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka sheegay mudane xasan sheekh maxamuud in la yareeyo oo xoogga loo jiheeyo dhinaca gurmadka abaaraha. taas annagoo raacayna runtii waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed in ay munaasabaddan xorriyadda iyo munaasabadda ciid al-adxada iyadoo laga faa'iidaysanayo oo 10kii koowaad ee 10kii beriha ee ilaahay uu sheegay inay ugu fadli badan yihiin maalmaha ay nagu soo fod leedahay inay walaalahood ay kaalmeeyaan oo ay dhibaatada la qaybsadaan dadka kale ee mashaahiirta la yiraahdo ama caanka ah, hadday yihiin saxaafad, hadday yihiin siyaasiyiin, hadday yihiin dadka isboortiga, hadday yihiin fanaaniin, hadday yihiin culummo, kulli in qof kasta oo saameyn leh oo bulshada saameyn ku leh inay gurmadkaas nagala soo qayb gasho ayaan doonaynaa. waxaan baahi doonaa mar dhow hadduu ilaah yiraahdo oo telefishinada qalabka warbaahinta kuwooda caadiga iyo kuwooda baraha bulshada iyo websaydyada kulli aan ku baahi doonaa abiil ama dalab aan dadka Soomaaliyeed u jeedi doono. waxaa ku qoran dalabkaas nambarada akaawnada lagu soo shubayo lacagta gurmadka. guddigan oo hadda xubno ka mid ah igala joogaan aan maamuli doona oo annagana aan la shaqay doono oon la socon doono xaalkooda. waxaan rabnaa maamul goboleedyada sidoo kale guddiyo qaar aan dhistay oo heer maamul goboleed oo ganacsato iyo bulsho iyo rayid iyo culamo isku jira, kuwa aan dhisanin inay guddiyadaas dhisaan oo aan guddiyadaas heerka gobol iyo midkaan hadda caasimadda ee federaal ay ka wada shaqeeyaan gurmadka ka yimaada dadka Soomaaliyeed in la gaarsiiyo. Soomaalida inay isku gurmataan rabnaa. adduunka gurmadkiisii waan ku maqannahay, dadaaladiisii way socdaan, way soo bilowdeen, qaaraa kordhiisaan sheegnay mucaawanada, qaaraa soo socda, qaar kale meelahoodaan ugu tegi doonaa, waa u safri doonaa hadduu ilaah yidhaahdo oo xafiiska ergeyga dadaalladaas wuu qaadi doonaa in adduunka aan soo jeedino. Soomaalidana waxaa la rabaa inay soo jeesida adduunka u soo jeestay